فاهمه waan soo imid jigjigan joogaan adu carruurtii maxaan ku radaa hooyisay kala beersanay adu carruurtii u tagaana misbaaki ayaa carruurteeda ana soo عليكم السلام. قف كان المقصود أنا لك. ويجوز خلق هذا حيث. أنا قلت لك. أيوة. محل رئيس حد في صوت معنا محل رئيس واحد من جديد فيكتور السلام عليكم. الله ورحكم يلا لباح يا عمدا ساتها الحمد لله حالة ذاك ورن ما استوى والله حبسان وات تميده هوي كور هو أدوى 50 والله 50 ساعة شيء دوية لا صاصة دكتور كإنه أورد من حفتك تو دكتور كان جاي ويدي محا كود عتله هوليور وما مجيون waxay la soo hadashay walaal la soo hadashay ay sidii uu saanay la soo hadashay xagu tima xanuunsan ma waan xanuunsanay ma oran bootadii ma iibinayay iibini ma isku ogeyn intana bootadii walaalan bay la soo hadashay hooyo xanuunsanaysa dhakhtarkii baan geeyay dhakhtarkii weynaaye dawladda waa la diiday oo waxa lagu xidhay lacag badbaado awanigi la soo hadashay ma siisa kiyeega farmasi ma siisa meel lacag ma seen ma hayo waa nuugi ku heshiinay oo lacag ma haynin waa siinuna markii bogsato siinoo helaysan bootadii wax xanuunsatay waa caadi bootadii miskadiisa waa baslaan ya bootadii miskadiisa
bootada aan iibin markay ugu jireen Haa. waxaan garan lahaa inay dhiikar ku soo booday dhakhtarkaasi dhiikar baahiyo bay guudi marka waxaan garan lahaa inuu dhiikar ku soo booday markii lagu yiri bootada markaan ku aanu ma iibinay sidii hooyo ay naga iibinin iyo inuu ku soo boodo markay meesha waxa u dhowdaa ma aragtay marka meesha tagtayna wax arag maygu booj adu ma saas ma u dhowdaa horta waad ogtihiin xafiiskii hore aan hore u deganay waan ka soo gurray waxaan noo soo gurray xafiisyada kaasi waa xafiiskii maaliyadda kaasoo ku maaliyadda kanna waa kii xafiiska waxbarashada kanna waa kii waa adeeg bixinta ya haddana wax sababtii waxaan xanuunsatay horta aanu ma garanayo Hay. laakiin laba sababood maan malaynayaa hay inay hooyo oo xanuunsatay Hay. labada sababood oo kala ah kow arrin aniga bay argagax gelisay horta arkay maalinkii dhigeen dhakhtarka aan oo imid noocee markaan jigjiga saa uga midaan qarbax soo galay ha farmasigii la geeyey baan tegey hay walaala markaa joogtayna xaafadaan u diray hay daqiiqadii hore oon farmasiga fadhiyey ah waxaa igu soo gashay Gabadh. mindi wadata hay gabadh oo mindi yu wadata wadatay soo gashay yu wadatay ma cid kale bukaanno kale meesha ma joogin hooyin baa joogtay farmasiga markaas bilood aduu ku soornay ya bilo wax ku soornay mayi waan arkay waan qabtayba waan Hay. arkay indhahan saaray maad tiraar diyaad haydo madse iska diis mar aliya markii saa u soo gashay iyadoon aan arkin bay mindidii tuurtay mindidii ay tuurtay albaabka ka baxday istagay albaabkii waan ka xidhay kadibna anoo maxaan ku dhahdaa ay ii soo gacan gashayba ah oon gudbin karay oon ama boolis la xidhiidhin karay ama anigu waxaan doonaa ka yeeli karay oon dili karaba ka gashay haa ah bay hooyo ii gacan haadisay oo ku tirkada iska sidaa bay u tiri sababta ma garanayo iska bada adoo iska daya dhantay dir left daya mii dayn meesha ma taalo dayn horta meesha ma taalo xamsu hay iminka anu saan u yimid weli ma nasanin oo intaan caadi u jibsay weli ma nasanin salma iyo ajmali waa ka warran buu lataa xafiiskan sida xafiiska wallaahi aad buu qurux badan yahay horta xafiis waxaan sameynaa doonaa si qurux badan oo nooga shaqeyn karno sida loo baahan yahay wey taas horta xafiiskan usoo guuray oo xafiiska hore ka soo guuray xafiiskani waa xafiiskeeni weeyaan oo ma garanaysaa halkaan ka soo wareegnay xaggaan ka soo wareegnay xaggaan adeeg bixinta aan bulshada aan ugu adeegaynaa waa halkan xafiiska adeeg bixinta weeyaa xafiiskeeni oo waxaan markaa rabnaa inaan bulshada si daacad ugu adeegno mid baa jirta xafiiskeeni maadaama uu shaqadiisu aada u badan tahay si ay mad garanaysaaye adeeg hufan bulshada u hesho waxaan mad garanaysaaye aan soo qondaynay in imtixaan la qaado wixii internaale sii joogay shaqaalasi ahaa iyo wixii naga baxsanba jooga magaalada jooga marka waxaa diyaar u ahaataan in imtixaan lagaga qaado imtixaan baad u diyaar garoobeysaan annagoo mad garanaysaaye cadcadaan oo mad garanaysaa qofna mad garanaysaay u exanayn uu qof mad garanaysaay dabada mad garanaysaa hebel iyo kutuur iyo hebelkan meel ii geli aysan jirin waxaan meesha u joognaa waxa weeyaan inaan bulshada adeeg hufan aanu adeegno aqoon-yahamiin badan baa dibadda jooga aqoon-yahamiin badan baa gudaha jooga oo shaqaynaya marka waxaan rabnaa inaan imtixaan qaado imtixaankaas baa usoo diyaar garoobeysaan ilaa goorman ilaa iyo hadduu next week imtixaan baa la qaadayaa oo usoo diyaar garoobeysaan natiijadana gidaarkaad ka eeganaysiin kii mad garanaysaaye promise mad garanaysaa ku guulaystana shaqada mad garanaysaa hore kasii geli bulshadana u adeegi markaa kadibna markaasa inta guulaysatana waa meel iyo mad garanaysaa la talin baa la siin doonaa cidda kalena gidaarka iska eegiyo natiijadeeda iyo wixii usoo baxaba halkaas iska eegi haddana intii laga gaadhiyo toddobaadkaa waad sii shaqeynaysiin bulshada usii adeegaysiin haddana saasaan igu ogahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيش في الدعيات saas ma ordaya war diyaaradda ku imaatinkan ku imiday deegaanka saa usoo galay ilaa iminka kabaan gashadaan weli gashanahay soomaalid garan anigu hore sabab kalaan malaynayo anaa laba cisho ila soo hadashay maalin goor waxay ku tiri bootadii waan iibinayaa ha iibinay maan kun maalin kale ila soo hadashay marka xataa aan ku hadlay bootada iyo ya dee bootada wax way jiri karaan laakiin ma garanay wax jira ma ogi
maantana maana sii wareysano farmasi wuxuu yidhi dawooyinka aad markaad siisid way ladnaanba insha allah inaad ladnaantaan rajaynayna marka dawooyin buu soo siiyey iyadiina waan soo kaxiyay xaafaddii baan geeyey wax lacagana maanan siinin marka hooyo horta anigu way ii xanaaqsan tahay waayahay sababtoo ah anaa bootadii ka xanibo mayna iibina weli dee imika haddii iga fursan weydo bootadii inaan iibin baan malaynaya bootada madiibin bootadii inaan iibin baan malaynaya haddii iga fursan weydo somaad garan iibka bootada markaa bootada iska iibi yaa iibi adoo iibiyaa dhac adoo laakiin haddaa iska diin lahayna way kasii fiicnaan lahayd waxaa laga yaabaa in bootada arrimo ku jirjiraan ilaahay baa ogi hooyaba way iibin lahayd ayba qasbi meel yar hagaagsan hooyaba waxbay kolaadu la bootada inaad iska bataayo ayar hooyana anaa lacagta ka bixin boota dambaha soo hadal qaadan bootada malaa loogu jiraayo jin iyo wax ugu jiraayo hal hadalkan ka yidhahdeen waxba umaana sheegin mana warsanin xitaa mana odhanin sababtaasaan kugu diidayey ee aad maxaad ugu dhegin maa odhanin laakiin kolka ladnaatayna galabteena aan wareysan isku dayi doona insha allah wareyso laakiin maxaaba wareysanba waxay dhiikar ku goosiye wayaan bootadan faraha ka qaada saa ku daayo war waxa laga yaabaa in la qaad mooji dhegeyso waxaad ii tilmaantaa inuu xaggeen shaqo kaga hagayaa shaqan u baahnahay shaqan ugu timaado shaqan u baahnahay shaqo de maxaad u wadataa shaada tii jaamacadda aniga digriigii soo dhamaystay dene oo imtixaan dhawidoon egan wani xaggan ka yar shaqeeya dee xaggan yaa waxaa tasbiir dhownaho dhulkii xasan noo ka yar shaqeynaa yar sharciyeynta waan yar sharciyeyn inkastoon daanna rabay inaan meel shaqo galada shaqo kale waxaan tegaynaa imtixaan baa la gelayaa haye imtixaankaa la gelayaan dee ka qayb gelayaa iyo dee haddaan imtixaanka ku baasan shaqada weyn baan gelaya